kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka idin haya telefishinka SDN waxaana kamida ra'iisul wasaare Roble oo safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya kulan kula qaatay Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la kulmay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya golaha shacabka Soomaaliya oo meel mariyay heshiiska waxbarasho ee dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya muwaadiniin Australian oo ku xandiban magaalada Muqdisho baaq u diray dawladda Australia wararka caalamkana waxaan idin haynaa dawladda Yemen iyo Xuutiyiinta oo heshiis wada gaaray bilaabay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maantay la kulmay safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya Aadan Ibrahim Shawqi ayaa faahfaahinaya warkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo wakiilada qaramada midoobay midowga Yurub iyo midowga Afrika kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin ku aadan xaaladda wadanka iyo sidii ay u dhexmari lahayd xukuumadda cusub wada shaqayn dhow isla markaana horey loogu sii wadi lahaa horumarada ay dawladda gaartay iyadoo kulanka ay qayb ka hayeen siyahayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo siyahayaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen ra'iisul wasaaraha ugu hambaliyayaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhaxeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada safiirada ayaa muujiyay taageeradooda ra'iisul wasaaraha cusub una rajeeyay inuu ku guuleysto howlaha muhiimka ah ee horyaala xukuumaddiisa waxaana ay ammaaneen arrimaha mudnaanta u leh ra'iisul wasaare Roble ee amniga doorashooyinka dib u habeynta hanaanka maaliyadda dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya sida warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Cumar Cabdullaahi Xasan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Ambassador Nicholas Martinez mas'uuliyiinta ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta iyo sidii loo dhaqaajin lahaa taageerada mashaariicda kala duwan ee ka socda caasimadda Soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha dib u dhiska iyo horumarinta nolosha dadka barakacyaasha ah gudoomiyaha ayaa dhankiisa kaga mahad celiyay safiirka EU ee Soomaaliya Mr. Berlanga wada shaqaynta wanaagsan uu la leeyahay maamulka gobolka Banaadir sidoo kale taageerada xoogan oo ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho si gaar waxa uu gudoomiyaha ula wadaagay safiirka waxyaabaha hortabinta leh oo uu gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho rabay in caasimadda laga fuliyo haday tahay horumarinta dhaqaalaha haday tahay amniga hadii ay tahay markaysa kor u qaadista shaqo abuurka iyo xirfadaha marka dhalinyarada ambassadorka ayaa soo dhaweeyay arintaas waxaana ballan qaaday dhankiisa in ay ballaarin doonaan oo ay xoojin doonaan wada shaqaynta ay leeyihiin maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdishona sanadkan sii dhamaanay 2020 iyo kan dhalan doona ee 2021 inay ka fulin doonaan mashaariic badan oo ay taageeri doonto marka midowga Yurub Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale brief gaaban ka siiyay arrimaha horumarada siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha la xiriiro matalaadda dadka Muqdisho degan labada aqal sidoo kale sida lagu gaari karo marka in dadka Soomaaliyeed ee degan caasimadda Muqdisho ee 3 milyan oo ka badan ay u heli lahaayeen fursadda ah inay doortaan maamul marka ay ayagu ay soo doorteen si furan 17 degmo gobolka Banaadir sidaas oo kale inay matalaad siyaasadeed ku helaan si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya labada aqal ee dalka midowga Yurub ayaa Soomaaliya waxay ka taageeraan dhinacyo fara badan sida dhaqaalaha iyo inay meelo badan oo kamid ah dalka uu ka fuliyo mashaariic kala duwan oo horumarineed
golaha shacabka ayaa meel mariyay heshiiska waxbarasho ee dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarasho ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. waxaana codka ha ku ogolaaday 150 xildhibaan oo ah tirada guud ee xildhibaanada kulanka maanta joogay. muwaadiniin Australian oo ku xaniban magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa baaq u diray dowladda Australia. markale aadan Ibrahim Shooqi ayaa faahfaahinaya warkan. in ka badan 40 muwaadin u dhashay dalka Australia ayaa ku xaniban dalalka bariga Afrika iyadoo qaarkood ay ku xayir yihiin magaalada Muqdisho. dadkaas waxaa ka mid ah Xaawo Axmed oo 82 jir ah iyo wiil ay dhashay oo lagu magacaabo Cabdishakuur Aadan waxaana Muqdisho ku xayirmeen ilaa bishii Maaj ee sanadkan. waxa ay ku sugan tahay xaalad caafimaad oo aan wanaagsanayn. Xaawo ayaa Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo timid inay aragto caruurta ay iyadu u tahay hayeeshee waxaa ku xirmay duulimaadyada caalamka kadib dilaacistii cudurka coronavirus. waxay sheegtay inay qabto xanuunka sokorta, dhiig karka iyo wadna xanuunka waxaana intaas ku dartay inay ka dhamaanayso lacagtii aysan iibsan karin dawo tayo leh. shirkadaha duulimaadyada ee Afrika tikidhada u jira muwaadiniinta Australia ayaa iyaguna sheegaya inay ka joogi laayihiin wicitaanada dadka Australia u dhashay ee ka walwarsan safaradooda. Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah dadka leh shirkadaha duulimaadyada ee wadanka Australia ayaa sheegay in duulimaadyada la joojiyay inta badan dadka soo wacaya ay yihiin kuwa dadkoodu ay ku xayiran yihiin Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa safar dhulka ku tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. sidoo warkan ku soo dirtay Leila Cabdi Cali oo SDN TV uga soo waranta Galmudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar dhulka ah ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa magaalada Gaalkacyo si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka iyo shacabka degmada iyo xubno ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha waxa socdaalkiisa ku wehlinayay wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka dekedda iyo kalluumaysiga, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Casiis Nuur. dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa goordhow soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaana afaafka hore ee magaalada si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka degmada iyo shacabka iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda. madaxweynaha waxaa socdaalkan ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka kalluumaysiga iyo xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynuhu waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Cadaado oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu ku sugnaa halkaasi oo uu kula lahaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka isla markaana uu kala hadlayay arrimaha la xiriira xoojinta arinta dib u heshiisiinta. ka hor inta uusan madaxweynuhu soo gaarin magaalada Gaalkacyo waxa uu soo maray degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud halkaasi oo uu kulan kula qaatay waxgaradka isla markaana ku dhiirigeliyay inay u diyaar garoobaan qabsoomidda gogoshii dib u heshiisiinta ee uu madaxweynuhu iclaamiyay intii uu ku guda jiray socdaalkii nabadda bishii 5aad ilaa iyo bishii 6aad. madaxweynuhu magaalada Gaalkacyo waxa uu u yimid arrimo la xiriira adkeynta nabadgelyada isaga oona markaasi kulamo kala duwan la qaadan doona waxgaradka isagoo sidoo kalena soo xiri doona tababar ciidamada daraawiishta oo halkan lagu soo gabagabeynayo tababarkaasi oo furmay bishii 6aad ee sanadkan. Leila Cali Cabdileele Dheeman, TV-ga SDN, Gaalkacyo. dadka ku dhaqan deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa bilaabay dhismaha iskuul uu yeesho deegaankaasi. sidoo warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cumar Cabdullaahi Xasan. wad Galinsoor waa tuulo hoos tagta degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. dadka tuulada ayaa waxay bilaabeen inay dhisaan iskuul waxbarasho. ku-xigeenka gudoomiyaha degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle iyo Xasan Cali Sahal oo ah gudoonka waxbarashada degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha iskuul waxbarasho oo laga dhisayo tuulada wad Galinsoor ee hoos tagta degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. dadka tuulada ayaa waxa ay isla markaana ay sheegeen in baahida ugu weyn ay tahay biyo la'aan ka jirta halkaas hayeeshee ay isticmaalaan ceel gacanta loogu keeno biyo. meeshaan meel hadda deegaan weyn oo fogaan badan oo
la sinan Galansoor iyo Cadaado kale waqtigoodii soo jiri jiray ceelka ceel wadeed weeye hadda ka horna nasiib uma helin in maaragtay ama xarun waxbarasho laga sameeyo ama ceel biyood laga sameeyo ama maaragtay laga sameeyo meel isbitaal laga sameeyo asaasiga nolosha asaasigooda dhan hadda ka hor waa ku dambeeyay marka waxa weeye maanta waxa u horeeya oon dhagax dhiganay waxbarashadii marka waxaan doonaynaa ama dawladda galmudug ha noqoto ama dawladda Soomaaliya ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto ama wasiirada ha noqoto xildhibaanada waxaan rabnaa dhammaan in kala qayb qaato oo nala dhiso waxa ugu horeeya waliba baahida oo aad ugu sii dhib badanahay waxbarashada iyo hadii ilaa isbitaalka iyo biyaha ugu culus marka matoorada iyo deegaanka waxaan rabnaa in matoorna loo sameeyo baahiyo badan ma taqaanaa ayaa ka jira ha ugu horeyso xagga biyaha matoor meel ma laha xagga ma taqaan waxbarashada xagga caafimaadka xagga ma taqaanaa boolis iyo saldhig boolis inta male waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta ah iyo dadka dhammaantood ma taqaanaa wax la baxaya waxaan leenahay wax ku darsadaan leenahay waxaan kaloo u sheegaynaa wasaaradda galmudug ee waxbarashada waxaan u sheegaynaa in deegaankani baahi waxbarasho uu qabo kulley baahiyaha kale oo taagan oo sheegteen wasaaradda ay hoos tagaan gudoomiyaha degmaduna waa nala joogaa laakiin annagu waxbarasho ahaan waxaan leenahay wasaaradda ay qusaydo dadkani dad baahan oo waxbarasho u baahan oo iskuul u baahan oo dad tiro badan meelay degan yihiin oo deegaan weyn awee runtii waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad sii laba laabtaan barnaamijkan aan maanta cag dhigayno ee iskuulka marka laga hadlayo waxbarashada muhiimadda ay leedahay runtii waa ka dharagsan tihiin oo waxaa laga yaabaa intiina badan dad cilmi diin yale iyo mid maadi yale inay deegaankan joogaan waxaan idinka rabnaa marka deegaano badan oo baahidan ka jirta baahida deegaanka wadeedna waxaan isleenahay waa saa'id markii deegaanada kale loo fiirsho deegaanadan tagayna inta badan waa deegaano wax un ka socdaan oo ugu yaraan arday xoogaa ay joogaan oo macallimiin xoogaa ay joogaan oo abaabul uu ka jiro waxaan marka reer wadeed maanta ku dhiirigelinaynaa inay deegaanada ka soo mid noqdaan oo maanta iskuulkooda aan dhagax dhigayno runtii waxaana isleeyahay haddii intaan ay midaysan yihiin isku fakar yihiin inay iskuul dhisaan iska daaya deegaanka wadeed oo dhan ay dhisi karaan waxaa mahad noo ah maanta inaan reer wadeed culimmadoodii iyo aan waxu kala laabnayn iyo ganacsigoodii ardadoodii ay heegan u yihiin in hore looga sii socdo meeshii la joogay ee jaahilnimada ahayd in laga baxo horta ilaahay mahadda iskale marka labaad waxaan hadda isku sheegaynaa oon caawa wacyigelin iyo dhaxdhigan aan dhagax dhignay oo markhaati aan ka nahay inaan iskuul ka dhisanayno horumar u soconno kor u soconno oo aan rabno in maqal iyo muuqaal laga ogaado jaalidyaheennii iyo reer galmudug iyo reer cadaado ay muhiimad noogu tahay in horusocodkaas garabkana la qabto waa qaybta koowaad muhiimadda halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka SDN xaruntiisa Muqdisho wararka caalamkana waxaa kamid ah dawladda Yemen iyo Xuutiyiinta oo heshiis wada gaaray dawladda dalka Yemen iyo kooxaha Shiicada ee Xuutiyiinta ayaa markii ugu horeysay wada saxiixday heshiis ay maxaabiista dagaal isku dhaafsanayaan heshiiskan ayaa ka soo baxay kulan ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo ka dhacay dalka Switzerland wuxuu heshiiskan hordhac u yahay isku soo dhaweyn dawladda caalamku uu aqoonsan yahay ee Yemen iyo kooxda Xuutiyiinta koorintan dib loo furin wada hadallada labada dhinac oo muddo dheer hakad ku jiray labada dhinac ayaa ku heshiiyay inay isdhaafsadaan maxaabiis ka badan 1000 askari oo ay ku jiraan 15 askari oo u dhashay Sacuudiga oo lagu qabtay dagaalka Yemen kiilka qaramada midoobay oo qaabilsan dawladda Yemen Master Martin ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dawladda Yemen iyo Xuutiyiinta guud ahaan warkii aad kala socoteen telefishinka SDN oo idinkaga imaanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waa naga inta